السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena falanqeynta qodobada aan idin soo gudbin doono waxa ka mid noqon doona wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka oo beenisay in dawladda Mareykanka ay damacsan tahay in afgambi ay ku sameyso madaxweyne Nicolas Maduro. waxaan kaloo aan falanqeynteena ku soo qaadan doonaa xiisad u dhaxaysa dalalka Kenya iyo Ethiopia. Theresa May oo dhaleecin u soo jeedisay madaxda caalamka. madaxweynaha Mareykanka oo kala diray guddigii la tacaalayay coronavirus iyo China oo sheegtay in Mareykanku uusan wax daliil ah u haynin in laabka Wuhan uu ka soo baxay coronavirus. Israa'iil oo qorsheynaysa in deegaano cusub ay ka sameyso daanta galbeed iyo wararkii ugu dambeeyay diyaarad ku dhacday Bardaale. waxa kale oo xusid mudan daawadayaal in aan idin soo gudbin doono wararkii ugu dambeeyay ee coronavirus ee gudaha dalka Soomaaliya. Sakariya ayaa barnaamijkan soo saaray. haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe saaro si aad u heshid falanqeyn iyo warar xasaasi ah oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan. waxaan ku bilowno falanqeynteena caawa. dawladda Mareykanka waxay sheegtay in aysan ka dambeyn afgambi la sheegay in lala damacsan yahay ama lala damacsanaa madaxweyne Nicolas Maduro. shalay oo talaado ahayd warbaahinta dawladda ee Venezuela waxa laga sii daayay muwaadiniin la sheegay inay u dhasheen dalka Mareykanka oo dawladdu ay qabatay kadib howlgal ciidamada amniga ee Venezuela ay sameeyeen. muwaadiniintan oo baasaboorradoodu laga sii daayay telefishinka dawladda magacyada iyo dhalashadooda ayuu madaxweyne Nicolas Maduro sheegay in ay yihiin saraakiil Amerikaan ah oo qorsheynayay in afgambi ay ka sameeyaan gudaha dalkaas Venezuela. hayeeshee arrintaas waxaa been abuur ku tilmaamay waaxda difaaca ee Mareykanka taas oo sheegtay in wax qorshe ah oo afgambi ah uu Mareykanku uusan la damacsaneen madaxweyne Nicolas Maduro. haddaba faahfaahinta iyo falanqeynta qodobkan oo ah qodobka ugu horeeya ee falanqeynteena waxa soo koobaya Sakariye. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku waxa ay beenisay inay lug ku lahayd wax lagu yeeray afgambi lala damacsanaa inuu ka dhaco Venezuela. warqad ka soo baxday ayaa waxa lagu daabacay sida tan: dawladda Mareykanka wax shaqo ah kuma lahayn waxa ka dhacay Venezuela maalmihii tagay. waxaa sidaas qoray xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper. maalmihii la soo dhaafay waxaa saxaafadda caalamka la isla dhexmarayay in aqalka cad uu qorsheynayo inuu afgambi ku rido madaxweynaha dalkaas Venezuela. hase yeeshee warkan maanta soo baxay waxa wasaaradda gaashaandhiggu ku sheegtay inaysan wax shaqo ah ku lahayn dhacdadaas. waayahay dhinaca kale Sakariye Trump waxaa la sheegayaa inuu kala diray guddigii la tacaalayay cudurka coronavirus. maxaa keenay in xilligan madaxweyne Donald Trump uu guddigan kala diro? aqalka cad waxa uu qorsheynayaa inuu kala diro guddigii horay ula dagaalamayay cudurkan coronavirus. taasna waxa lagu sababeynayaa cadaadis kaga yimid dhanka shacabka. aqalka cad iyo waxa way madaxweyne Trump xisbigiisu waxa ay wajahayaan cadaadis sida ay u wajaheen cudurkan coronavirus. waxaa la sheegayaa in ka gaabis weyn ay ka sameeyeen cudurkan dad badan oo ku dhacay. dad aad u tiro badan ayaa Mareykanka xanuunkan u dhintay oo kor u dhaafaya 67,000. dad intaas ka sii badan ayaan isbitaalada u jiifa. saadaradeed dadka shacabka ee waddanka ku nool waxay leelisan yihiin shaqada guddigan. taas ayaa waxa ay sababtay in madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu kala diro uu yiraahdo waxaan kala dirayaa guddigii oo horay ugu qaabilsanaa la dagaalinta cudurkan coronavirus. taas waxay ku soo aadaysaa xilli cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba ay wajahayaan aqalka cad uu wajahayo. waxaana saaran runtii cadaadis aad iyo aad u weyn. madaxweynaha Mareykanka sidoo kale xilli uu booqday warshad Arizona ku taala taas oo lagu sameeyo maskarada afka iyo sanka lagu daboosho ayaa waxa uu sheegay inuu kala diraayo guddigan u qaabilsan cudurkan coronavirus. arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli jahwareer badan uu ka taagan yahay dalka Mareykanka. laakiin waxaa la rajayn doonaa in arrintan ay wax ka qaban doonaan guddigan cusub ee la sameeyo, in ay shaqo fiican qaban doonaan. sababtoo ah waxaa meesha ka bixi doona guddi ka horreeyay oo runtii waxyaalo badan soo dhaqaajiyay. iyagana waxaa laga rajayn doonaa xilli faham weyn laga qabsaday ama waxa way aqoon weyn ay maanta laga haysto cudurkan coronavirus in si fudud ay u wajahaan xanuunkan. culoosyadii guddigii hore haystayna mid ka fudud uu qabsan doono. wixii warar oo ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan ku soo xusi doonaa.
waayahay dhinaca kale maraykanka iyo china waxay dhowaan isku eedeynayaan sikriye mas-uuliyadda coronavirus. Trump oo ah madaxweynaha maraykanka dhowr jeer warbaahinta wuxuu ka sheegay in cudurkan uu asalkiisa ka yimaado china. Mark Pompeo oo ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda maraykanka isaguna wuxuu dhowaan shaaciyey in Wuhan lab ku yaallo uu ka imaado coronavirus, laakiin dowladda china arrintan way diiday, waxayna sheegtay in waxba kama jiraan ay tahay oo dowladda maraykanka aysan haynin caddeemo intaas ka badan marka laga reebo eedeynayaan dowladda china. Waa tahay sikri, waxaa kaloo qodobada wararka ugu waaweynaa ayaan falanqaynteena eegi doono. Israa'iil haddaanu eegno, Israa'iil waxaa la sheegay in guryo cusub ay samaynayso oo dhismayaal cusub ay samaynayso. wasiirkeeda difaaca waxa uu sheegay in ay meel mariyeen 70,000 oo guri. taas waxay ka dhigan tahay in deegaameyn cusub ay samaynayso Israa'iil, iyadoo adduunyadu ay jahwareer ku jirto oo ah jahwareerka coronavirus. maxaa warar warbaahinta ku qortay sida ay warbaahintu hadlayso arrintanna maxaa nooga sheegi kartaa? haddii aan ku horumarno qodobkeennii hore oo ahaa dagaalkan China iyo Maraykanka ee cudurka coronavirus, meesha uu ka bilowday horta cudurkan waa dalka China, magaalada Wuhan. China waxa loo yaqaano zero patient ma aysan gudbin, oo ah qofkii ugu horreeyay xanuunkan u dhintay, sababta uu dhintay iyo xanuunka meesha uga yimid. saa daraadeed jahwareer ayaa dunida ka abuurtay inaan wax macluumaad laga haynin xanuunkan. eedaha la isdhaafsanaya labada dalba wax ilaa hadda xaqiiqa oo ku salaysan maahan. aqalka cad waxa uu China u jeediyey eedayn ah in dagaalkan ay iyagu abuureen oo kasoo faafsaday lab, halka China laftirkooduna ay sheegeen in ciidamo Maraykan ah magaalada Wuhan ay fayraskan ku dhex waafiyeen, taasoo ay u sababeynayaan dagaal ganacsi. marka doodan waa dood taagan, laakiin waxaa arrintan asbuucii la soo dhaafay ka hadlay madaxa WHO Master Tedros. waxa uu sheegay in WHO ay si cad u baari doonto oo xaqiiqda ku salaysan sababta iyo meesha uu ka yimid. waxaa xusid mudan in maanta madaxweyne Donald Trump uu sheegay in ay saari doonaan canshuur adag qalabka ama ganacsiga ka yimaada China, taasoo u sababeynayo in China uu ka dambeeyay cudurkan coronavirus. saa darteed waxa uu sheegay in uu canshuur fudud ama canshuur khafiifa uu saari doono warshadaha dalka, dibna loo kicin doono dhaqaalaha dalka Maraykanka ee dhulka galay. waxa uu sheegay in gebi ahaanba sanadaha soo socda ama waqtiyada ama bilaha soo socda uu Maraykanku joojin doono ganacsiga ama ganacsiga ka yimaada dalka dibadiisa ee uga yimaada China, waliba khaasatan uu joojin doono. taasna wuxuu ugu sababeeyay in China uu si cad oo bareer ah u abuuray fayraskan uu ka soo baxsaday laakiin markii aan isku soo wada duubnaba arrintaas waxay soo dhammaan doontaa marka ay war ka soo saarto hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. WHO ayaa laga sugi doonaa warka ugu dambeeya, maadaama uu sheegay directorkooda in dhowaan ay samayn doonaan baxthi ama baaritaan ku saabsan barnaamijkaas. qodobka labaad oo isna ah arrintan deegaamaynta daanta galbeed ee Falastiin, waxaa la sheegayaa in dhaweydba halkaas laga dhisayay guryo oo ay dhisaysay Israa'iil, oo la sameynayay dib u dejin lagu sameynayay muwaadiniin u dhashay dalka Israa'iil. meeshan waa meel ay ku dagaalamaan Falastiiniyiinta iyo sidoo kale Israa'iil, waxaana ku dhex maray dagaallo aad u tiro badan iyo sidoo kale dhimasho badan iyo hanti badan. laakiin markan Israa'iil waxay isticmaashay awood military, waxay halkaa ka dhistay guryaha waxay samaysay dib u dejin ay u samaysay dadka asal ahaan ka soo jeeday, dadka Yuhuudda ee asal ahaan ka soo jeeda Israa'iil, waxaana ay doonayaan in halkaa ka dhisaan haddii Ilaahay ku roon yahay in halkaas waxaana la rajaynayaa in halkaas geeyaan dadkaas muwaadiniinta ah. maanta ayayna bilaabeen daabulitaanka ama shaqada ugu badan ee halkaa dadka lagu geen doono. sikri, telefishinka Al Jazeera waxa uu daabacayaa xogayaha arrimaha dibadda Mark Pompeo inuu qorsheynayo in uu booqdo isbuuca soo socda Israa'iil, sida ilwareedyo ugu warrameen Al Jazeera uu sheegay oo soo xigtay. marka waxaa leeyahay arrintan waxa ay qayb ka tahay qorshaha Netanyahu ee dhismayaasha iyo xuduudaha inuu adkeeyo ah. sidoo kale wararku waxay sheegayaan in Netanyahu sidoo kale uu rabo in siyaasadda maxaa la yiraahdaa Israa'iil ee deegaamayntan uu wax badan ka bedelo. 1 July qorshaha wuxuu yahay in la caddeeyo
madax bannaani guud iyo xuduudo ay leedahay Israa'iil iyo istiraatiijiyadda Israa'iil cusub. Waxaa hore u ogeen in Qudus ay noqonayso caasimadda Israa'iil. Marka waxa ay tahay qorshe ay daadejinayso dowladda Israa'iil iyadoo ay kaashanayso reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka. Sidoo kale isla shalay Arbacay ahayd xogayaha difaaca Israa'iil Naftali Bennett xafiiskiisa war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in 7,000 oo guri dabcan sida markaasi Al Jazeera ay soo qortay in la meel mariyay. Marka waa guryo cusub meel la meel mariyay gaar ahaan Efred halka la yiraahdo. Marka waxay muuqanaysaa in Israa'iil ay maxaa la yiraahdaa isbedel iyo siyaasad cusub ay muujinayso. marka aan siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Israa'iil iyo Mareykanka waxa weeye saaxiib weyn sida uu Trump meesha u yimidba. Israa'iil waxa ay garab weyn ka helaysaa Mareykanka. Mareykanku waxa uu u raray safaaradiisa Qudus ayaa uu raray. waxaana ay rabaan in caasimad ay noqoto Qudus. dhawaan waatii uu madaxweyne Donald Trump uu sheegay in bariga dhexe chapter cusub uu furmi doono Israa'iil. garab weyn ay ka heli doonaan dawlado reer Carbeed ama bariga dhexe ah. waana ay ka heleen oo dawladda Masar iyo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Sacuudigu waxa ay taageero u muujiyeen Israa'iil iyo Mareykanka. marka waxaa moodaa in Falastiiniyiinta iyo dunida Islaamka ee Carbeedba looga guuleystay dagaalkan deegaameynta dhulka daanta galbeed ee ay haystaan Yuhuuddu. marka Mark Pompeo iyo howlwadeennada kale ee dalka Mareykanka ka wada imaanayaba waxay xoojinayaan sidii loo dhisi lahaa dhismayaashaas ee ugu guur lahaayeen dadka muwaadiniinta ee u dhashay Israa'iil. waxaana ay Israa'iil si cad ku doonaysaa inay caddayso xuduudaheeda ay la wadaagto Falastiin. waana iska caddahay waxa ay doonayaan in ay qabsadaan kala bar dhulka reer Falastiin haddii aysanba isagoo dhanba la wareeginba. marka taani waxay gaabis ku tahay ama dhaleecayn weyn ku tahay dunida Islaamka ee uu hogaamiyo boqortooyada Sacuudigu. aamusnaanta iyo waxa weeye ka hadal la'aanta barnaamijyadan runtii dhaleeca weyn ayay kala kulmayaan marka loo fiiriyo dunida Islaamka dadka shacabka ee wadamadooda ku nool. marka wixii warar oo ka soo kordha barnaamijyadan waa fiirin doona, laakiin culaysyo ayaa ka taagan arrintan ama jahwareer ayaa waxa ku taagan yahay gudaha dalka Falastiin. caqabado waaweyn ayayna ku noqdeen ama dhibaato weyn ayay ku noqotay imaanshahan Mark Pompeo dalkaas iyo guryahan tirada badan ee laga dhisay daanta galbeed ee la dejinayo muwaadiniinta u dhashay Israa'iil iyo Yuhuud. yahay wixii ka soo kordha wararka ku saabsan deegaameynta cusub daanta galbeed ee Israa'iil ka wado iyo booqashada halka maalin ah sida uu shaaciyay Al Jazeera isagoo soo xigeenaya la waraadiyo. sidoo kalena uu daabacay wargeyska Israa'iil ee ka soo baxa Hayom la yiraahdo isagoo sidoo kale soo xiganaya safiirka Mareykanka ee Israa'iil David Friedman kaasoo sheegay in daanta galbeed iyo isku xirka Jordan uu yahay arrinta ugu weyn ee Israa'iil. wixii ka soo kordha wararkaas falanqeynteena ayay dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allah uu daliyo raali ka noqdo. Soomaaliya haddaanu eegno Amisom ayaa war ka soo saartay diyaaraddii ku burburtay Bardaale. war-saxaafadeed ay soo saartay Amisom ayay ku sheegtay in ay soo dhaweynayso go'aanka ay dowladda Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya ku baarayaan diyaaraddii ku burburtay Bardaale ee gobolka Bay. waxaan jeclaan lahayn inaan taageeraheennii soo jireenka ahaa aan u muujino dowladda Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya. waxaana diyaar u nahay inaan ka caawino wax walba oo baaritaanka ujeedkiisa ah ee ku aadan dhacdadan, ayuu yidhi madaxa howlgalka ciidamada Amisom Francisco Madero. diyaaradda siday agab loogu talagalay ka hortagga coronavirus ayaa ku dhacday magaalada Bardaale ee gobolka Bay. inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta ay diyaaraddu u burburtay, waxaana warar kala duwan oo soo baxay ay sheegayeen in ciidamada Itoobiya ee ku sugan Bardaale meel aan ka fogeyn ay tijaabinayeen diyaaraddaas ay soo riday. intiina la socotay falanqeynteennii hore waxaan ku soo gudbinay in diyaaraddaas ay ku soo dhacday meel aan ka fogeyn Bardaale. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa horey u booqday, waxaana jira baaritaano la sheegay in arrintaas lagu wado.
ha yeeshee natiijada baaritaanadaasi wixii ka soo kordha isla falanqeynteena kale ee soo socota ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa haddii allah ugu dilay uu raalli ka noqdo iyadoo gudageli doona markaan falanqeynta ku saabsan wararkii ugu dambeeyey cudurka coronavirus ee gudaha dalka Soomaaliya. Sakariye oo barnaamijkan soo saaray ayaa soo koobaya tirada kiisaska cusub ee coronavirus ee Soomaaliya. warbixinta la soo saaray shalay oo bishu ahayd 6 bisha shanaad 2020 waxay sheegaysaa 38 in la helay kiisaska la helay ay yihiin 38 35 kamid ah laga helay Banaadir Muqdisho 3 kamid ah waxa laga helay Somaliland 30 kamid ah waa lab 8 kamid ah waa dhadig waxa bogsaday 12 qof dhimashadu maanta si guud waa hal tirada guud ee laga helay xanuunkan Soomaaliya oo dhan waxa weeye 873 bogsashadu guud waa 87 dhimashadu waa 39 wixii warar oo ka soo kordha waxaad nagala socon doontaan channelkeena Saadaalin waxaana naga go'an in mar walba idin soo gudbino warbixinada ku saabsan cudurka coronavirus ee gudaha dalka Soomaaliyeed. وهاجا فلقينتي intaan ka bixin qodobkeena ugu dambeeyay ee falanqeynteena Kenya iyo Ethiopia oo ah laba wadan oo daris ah isla markaana daris la ah Soomaaliya ayaa xiisad laga soo sheegaya. Sakariye xiisadan maxay tahay labada dawladood ee Kenya iyo Ethiopia oo aan ogeyn in xiriirkooda dhinaca diblomaasiyadda iyo ganacsiga iyo siyaasadda uu ahaa mid fiican ama ay labada wadan ay hayeen saaxiibo dhow. xiisadan waxaa keentay diyaarad ku burburtay meel u dhow Bardaale waxaana la sheegay sida la sheegay diyaaradan magaceeda lagu sheegay African Express waxaana ay ka diiwaan gashanay dalkaas Kenya ay ka diiwaan gashanay waxaana iska lahayd ganacsato Kenya waxa xusid mudan inay la socdeen lama muwaadin oo ka soo jeeda Mombasa Kenya oo lagu kala magacaabo Mubarak lagu kala magacaabo Mabruuk Islam Sharman iyo Umar Jaragladin labadaas nin bayloodiyada ah ayaa diyaaradda la socday. Kenya waxa ay sheegtay inay si madax bannaan u baarayso waxa ku dhacay diyaaradan arrintaas waxay keentay in khilaaf uu soo kala dhex galo dalalkaas Ethiopia iyo Kenya indhawaalaha waxa taagnaa khilaaf u dhaxeeya Kenya iyo Ethiopia mar waxay ku sigteen inay dagaalamaan taasi waxay ka dhalatay xilligii dawladda Soomaaliya ay iyo ninka loo yaqaan Cabdirashiid Janan ay isku horfadhiyeen balad xaawo marka Kenya iyo Ethiopia indhawaalaha xiriirkoodu wuxuu ku tukubayay ul ayuu ku tukubayay mana wanaagsanayn arrintan waxay dabka ku siishadaysaa xiriirkii aan wanaagsanayn baryahanba ama midooyinka la soo dhaafay ciirciirayay muwaadiniintaas dhintay waxa ay Kenya sheegtay in iyadoo ay xaq u leedahay maadaama diyaaraddu ay ka diiwaan gashanay dalkeeda ayna baarayso waxa ka dambeeyay shalay war ka soo baxay shirkadda African Express waxa ay sheegtay in sawir lagu qaaday satellite-ka uu sheegay in gantaal uu ku dhacay diyaaradan ayna rideen ciidamada Ethiopia ka agdhow halkaas gantaalkan ayaa waxa la sheegay inuu ahaa mid tijaabo ah hase ahaatee wax war ah oo ka soo baxay ma jiraan ciidamada Ethiopia ee ku sugan gudaha Soomaaliya ka qayb galaya howlgalka AMISOM waxa xusid mudan in warqad dejin ama u ekayd isku soo dhaweyn ay maanta soo saartay AMISOM warqadda waxa lagu sheegay in AMISOM soo dhaweynayso in baaritaan ay wada sameeyaan Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kenya hase ahaatee wixii warar oo ka soo kordha waxaan kula soo gudbin doonaa wararkeena dambe fadlan haddii ay tahay booqashadaadii koowaad nala soco oo subscribe garee gambaleelkana furo guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa falanqeynteena tan iyo kulankeena kan xiga sidaas iyo nabadgelyo.